Assalaamu calaykum dhammaan muwaashaqiinta applicationka eFootball ama Konami. Maanta waxaan idinka dabageyn doonaa update-ka cusub ee maalinta Isniinta ah, waxyaabaha la keeni doono, waxyaabaha ay dadka hadal hayaan, iyo waxyaabaha markaasi la soo wado. Intaan muuqaalkeena gudaha u sii gelin, waxaan idinka codsanaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad YouTube-kan soo booqato in aad subscribe noo saarto YouTube-ka si aan u gaarno 200 oo subscribe ah. Haddii muuqaalka aad hore subscribe noogu saartay YouTube-ka, haddii aad hore subscribe noogu saartayna muuqaalkan like saar, u share gareey muwaashaqiinta markaasi xiisaysa eFootball ama Konami. Waayahay, marka update-ka la soo wado, waxyaabaha update-ka ah ee markaasi game-ka ku cusub ayaan markaasi idinka dabageyn doonaa. Waayahay, horta waxaa jirto box yar oo dadka ay hadalhayaan oo markaasi dadka badankoodu ay isdhahayaan maalinta la soo furayo iyo waxyaabaha ku jiro. Waayahay, horta waxaa la soo wadaa Barcelona ayagoo Epic ah. Marar badan waan dhahay waa la soo wadaa. Hadda waxaa la filayaa maadaama ay ku aadan tahay Barcelona dabaaldegeeda iyo in markaasi la keeno saddexda rag oo halkan ugu jeedaan Lionel Messi iyo Neymar iyo Suarez. Marka saddexdan Epic ay ku imaan doonaa Epicyo. Marka saddexda rag marar badan waa la dhahay waa la keeni doonaa, waa la soo wadaa. Qof walba oo markaasi eFootball-ka ka hadlo uu dhahay saddexda rag ayaa la keeni doonaa oo markaasina Lionel Messi uu gaarayo 103 iyo Neymar oo markaasi gaarayo 100, Suarez oo markaasi asagana gaarayo 100. Raggan waxaa la filayaa maalinta beri ah oo 28 Oktoobar ay ku beegan tahay in la keeno. Waayahay, waxyaabaha kale oo la isku hadalhayo waxaa ka mid ah box-kaas yar oo markaasi halkaas ugu jeedaan oo calaamad su'aal ay saaran tahay, taariikhna ay markaasi ku dul qoran tahay. Dad badan ayaa isweydiinayo maxaa ku jiro box-ka, goormee na la furi doonaa box-kaas, maxaase ka faa'iidi doonaa. Waayahay, box-kaas horta waxaa la furi doonaa 30 Oktoobar ilaa iyo 1 November ayuu furnaan doonaa. Haddii aad ka faa'iideysan weydo waa la qaadi doonaa box-kaas. Marka box-ka haddii 30 November ilaa iyo 30 Oktoobar la furo, maxaa ku jiro oo aan ka faa'iideynaa ayaa dad badan i dhaheen. Horta waxaa ku jiro Kai Havertz ma ahane, Kai Havertz horaan loo siiyey ciyaaryahan kaleeto oo Arsenal ka tirsan oo markaasi box-ka ku jiro. Hadii ciyaartoyda Arsenal mid ka mid ayaa box-kaas ku jiro. Haddii aad ka faa'iideysan weydo kulley aday ku taalaa. Waayahay, dhanka kale haddii aan eegno Barcelona waxay ku imaan doontaa in markaasi sidaan ay ku imaato oo 150 qof markaas dhexdooda la soo geliyo oo Lionel Messi iyo Neymar iyo Suarez oo u horeeyaan iyo ciyaartoydan kale oo naadiga Barcelona ka tirsan oo gadaal markaasi sidaan loo dhigi doono iyo ciyaartoy kaleeto oo markaasi la daba dhigi doono. 150 dhexdooda ayaa la gelin doonaa. Markaasi 150 kaas ayaa koonis ku tuuranaysa, nasiibkaaga ayaa deysanaysaa. Waayahay, nasiibkaaga ku furo. Maadaama muuqaalka dhammaadkiisa aad la soo gaartay, intaas ayaan jeclaystay inaan idinka dabageeyo. Waxaan si naxariis leh kaaga codsanaa in YouTube-kan subscribe ii saarto, muuqaalkana aad like gareyso. Aad u mahadsantahay.